ciid wanaagsan garoonka kubadda cagta ee ku yaala xaafadda ay Soomaalidu ka degan tahay magaalada Johannesburg ee Mayfair ayaa boqolaal Soomaali iyo Muslimiin kale isku jira waxay ku wada tukadeen salaada Ciidul Adha kadib salaada Ciidul Adha markii la tukaday ayaan mikrofoonka TV-ga caalamiga Kalsa la dhaxmaray dadkii Soomaaliyeed ee soo xaadiray tukashada salaada si ay eheladooda iyo asxaabtooda ciid wanaagsan u dhahaan waan ku tukanay magaalada Johannesburg xaafadda Mayfair waxaan halkan ka salaamayaa dadka muslimiinta ah dhamaantood waxaan salaamayaa culimada diinka Soomaaliyeed iyo muslimka guud ahaan waxaan kaloo halkan si gaar ah uga salaamayaa xaaskayga Maxamed Saciid iyo carruurtayda waxaan leeyahay ku ciid wanaagsan sanadkan kiisa kalena Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha ku gaarsiiyo dhammaan annaga iyo idinkaba Assalaamu calaykum waxaa leedahay Faaduma Cali Jeeje waxaan ahay gudoomiyaha ururka Johannesburg haweenka Soomaaliya Society Women Network maanta waxaan ku soo tukaday garoonka weynaa Johannesburg Mayfair ku yaala ciidda ummadda Ilaahay muslimiinta meel ay joogaan aan iskugu kulmeen waxaan ku faraxsanahay ilmaha Soomaaliyeed muslimiinta meel ay joogaan inay meeshan ku kulano maanta aan ku ciideysano maadaama wadankeena aanan joogin dareenkayga maanta Soomaaliya inaan ku ciido ayaa aad iyo aad ugu faraxsanaan lahay wadankayga ma ahan qurbaan jooga aan xaramkan inaan ku ciidaan rabi lahay haday ii noqoto insha Allah one day waan ku ciidaya ee ummadda Ilaahay Soomaaliya muslimiinta meel ay joogaan dhan ciid wanaagsan baan ilaahay Rahmaanir Rahiim halkan maanta waxaan nasiib u yeeshay in aan salaan hawada u mariyo dhammaan ummadda muslimka cadaan iyo madow meel kasta adduunyada ka jooga waxaan leeyahay dhinacayga caafimaadka ciida magacayga waa Yuusuf Maxamed Xasan waxaan si gaar ah u salaamayaa waalidkayga sida qaaliga sida aadka u jecelahay hooyaday Faadimo Yuusuf Cusmaan iyo aabahay Maxamed Xasan Cabdullaahi waxaan kaloo si gaar ah u salaamayaa asxaabtayda qaaliga ah inkastoo magacyadooda halkan aan ku soo koobi karin waxaan leeyahay ciid wanaagsan waxaan kaloo salaamayaa inta magacayga iyo muuqayga taqaan Soomaalidana aan u rajeenayaa isku duubni nabadgeliyo iyo inay nolosha jeclaadaan meel kasta adduunyada ka joogaan oo dawlad xoog leh awood leh adduunyada la tartanta macnaha ay yeeshaan wa salaamatiin كل عام وأنتم بخير وحنا لا يمتقن عيدا عافيماتكم عيدا بالله إن شاء الله. الرحمن الرحيم مقعي ومحمد داق أو كسو من دلك وفرق كارهان جوهانسبرغ ما أنت نصيب ويا شيء مناسبة عيد الأضحى إلى السوق القراء صلاة نسيب الجيران نتكلم حسيكار رقم هالنقية إمام البيان وسوق مقابل صلاة العيد سيدك روحان هل كانوا مهتمين بعض الصحافة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعي حلقة سعيدة عبد الوحيد أحا سلامة يا هبيرتي أو مقالة جيرماني جوكتا هبيرتي كلا أو نيروبي جوكتا يا أبي أو أمريكا جوكتا أحدها يا سيدك مسلمين تودنا مقعي وأحمد محمد عمر وحسين سوافريكا سبيشال جوهانسبرغ وحان سلامة دمان ومدى الصومالية من الويدين لكي جوغان وفاميلتي وفرندسك وحان لها بيت مبارك مع عبد الله وحان لها أمد مسلمك السلام عليكم كل عام وأنتم بخير أنتم وحان كسلامة يا فاميلكي دمان تود ميل اللي ميشي جوغان أبي وحمر جوغان ولا عليه نيروبي جوغان كل دمان أدرد إنجليز كجوغان وحان لها هاي عيد ونكسر السلام يا دمان أمد الصومالية من والبيت مسلمك وحان هلك السلام يا ويدي حوا حرايا فريش وحان هلك السلام يا رير عبد القادر الشيخ أحمد وحان هلك السلام يا وحان هلك عبد القادر مع عبد القادر سهرة عبد القادر حنبي وحان هلك السلام يا ولالك حسن عبد القادر ولالك عبد الحكيم المها على رفوع هاي دمان وحان هلك السلام يا أمد الصومالية من والبيت جوغان maanta waan ku faraxsanahay inay ciid noo tahay waxaan salaamayaa abeygii oo Mareykan joogo iyo waalidiinteyda dhan iyo walaalayaashaydii iyo walaalahaygii oo joogaan Soomaaliya iyo ayeeyooyinkaygii iyo awooyooyinkaygii waxay joogaan Soomaaliya waxaa dhammaan salaada ciidda laga tukaday dalka Koonfur Afrika gaar ahaan magaaladan aan ku noolnahay ee Johannesburg taasi oo ay soo qabanqaabiyeen ururka majliska Soomaaliyeed ee kumidaysan yihiin culimada Soomaaliyeed ee Albayaan Idris Sheekh Ahmed Guure telefishinka caalamiga ee Kalsan magaalada Johannesburg dalka Koonfur Afrika